odayaashu sida ay yidhaahdeen 94 abriil oo berriya xilliguu weerarku dhacayna 20kii bay ahayd 3 maalmood baa u dhaxaysay 17kii bay dalbadeen 20kiina weerarkii baa dhacay oo laf meel walba laga weeraray waxaa kaloo jirtay baarlamankii la dhisay ee deegaanku aftidiisii isagaa soo saaray jabhaddu kuma qasbin isagaa soo saaray aftidii shacbigana waa u bandhigtay jabhaddu maxaan samaynaa bay tiri waxay dhahdeen waxaan rabnaa inaan xornimada nada qaadanno xaq baan u leenahay markaa horta soomaalida waxay tidhahdaan miskiin baa miska la fuula leh in lagaa adkaado ama lagu jabiyo quwaddaada iyo inaad u ilduuftaa way kala duwan tahay aan ka soo gudbo xilligan xaadirka ah iyo taariikhdan maanta ee joogno horta xilligii way eg tahay nin baa wuxuu yidhi wiishu qaski meel lama tegin xilliga aynu sidaa lahayn waxaan ognahay shacbigeennu waa shacbi bir ah waa shacbi adag waa shacbi ku adag wixiisa halgankanna waxaa bilaabay ugaasyo garaado iyo salaadiin iyo aqoon-yahan waagii hore xitaa 64 iyo wixii ka horreeyay ilaa sayid maxamed iyo axmed guri waad ogtihiin muddada dambe maxaa khaldamay haddaba anu waxaan leeyahay ra'yigayga aan u arkaa hoggaaminta dhaqanka ee xilliyadan dambe joogtay innagaa horta gumaynay dadkeenna hoggaaminta dhaqanka anoon ka leexleexanayn anugu idinka mid baan ahay anu ka mid baan ahay hoggaaminta dhaqanka ama odayaasha ka mid baan ahay waxaan leeyahay shacbigeenna innagaa gumaynay oo jabinnay oo in gabdhihii yaryaraa iyo birmageydadii iyo hooyooyinkii lagu dacatiyey innagaa sahlay lianna haddaan diidi lahayn oon dhihi lahayn ma dhici karto mayna dhacdeen horta shacbigana lama dhammeeyeen innagana maalin laynama wada digay maantaynu joognaa haddaba yaynaan ku warwareegin walaalayaal magaca ogaadeen iyo oon laf iyo ogaadeen iyo shalay soomaali galbeed baan qaadanay kolkaan shalay soomaali galbeed ku halgamaynay maxaa dhacay sii galbeed baa dhacday iyo ka sii galbeed marka aan isweydiinno oo si dhab ah uga tashanno inay waxaynu rabno yahay gobonnimo iyo halgan magacu wax macnaa ma leh maalinkaa oo laf ku guulaysatee hore baarlamanka xitaa waxaa la soo dhexdhigay magacay qaadan lahaayeen hadda kan la haystaa ma ogaadeen yaa Somali State soo maaha ka on laf xitaa bixisay haddana waxaa le odayaasha dhaqanka maanta maxaynu qaadan doonaa xabadii waa la dhigay shalay hay gubin bay ahayd waynu ka soo gudubnaa hay gubin maanta nin baa qori wato wiilkaagii baa qori wata linnama laha maantana ma ka fuleeyobaynaa inaan nidhaano xaq bay ummadannadu u leedahay horumar bay u baahan tahay wadday u baahan tahay iskuul bay u baahan tahay inaynu nidhaanaa maantana maxaa ka yeelaynaa innaga odayaasha dhaqankii waa doorkeenni maanta iyo aqoon-yahanka marka waa lay daba taagayahay waxaan jeclaan lahaa aniga in jaanis fiican la siiyo lianna anu miyooda dhaqameed caadiya anugu hadday guul leedahayna hadday eed leedahayna waxbaan ku lehay hadday mahad leedahayna taariikhdu waxbaan ku lehay hadday eed leedahayna dadka lagu maxkamadayn baan ku jiraa waayo guddigii fulintii baan ku jiray hoggaamintii baan xilliga ahaa arrimaha gudadka hana qaabilsana maxa wixii guuldarree soo dhacday qayb baan ka qaadan marka aanan sii taraarixin waxaan leeyahay anugu ku soo gebagabayn lahaa odayaasha dhaqanka ee beelaha waynu wada joognaa beelihii soomaaliyeed oo maanta cidna wax looma doonaynin annagu runtii naftoolhoreyaal badan iyo halyayaal badan oo nalala qabin yaanu ku weynay halgankan aad buu mahadsanyahay ninkii lahaa xitaa bal shuhadadoodii ha loo qorama taariikhda ha lagu daray aad baan kuugu mahad celinayaa iyo raggii kale erayada fiican soo jeediyey qabiil ogaadeynana waxmaana raadin hadda uma raadinayno marka intaynu isu nimaadno waxa ummadeenna anfaca aynu isweydiinaan anugu ku talin odayaasha dhaqanka intaasaan leenahay jabhadda waxaan u soo jeedinayaa oo dhihi lahaa 30 sano waxaan inagu abuuraynay kaadir fikradeed oo xorriyad iyo muyuul dagaal baan abuuraynay deegaankeenna intaan ka maqnayna waxaa lagu abuurahayay kaadir leh fikir ethoobiyaana gumaysi wax ka duwanla lagu abuurahayay labaduna waa xooggii waddanka marka fikirkan xilligan xisbigan abuurmay iyo kuwa soo socday iyo keenan
كان هذا أون لفيض وضو هذا لم يذينين فكر كاللوها وجين وحبا ما يخلدمي ويتقنا جبته لحن باه المؤسسين إلا يركض ركتين كعظمك يعني سوق ولا سوق قاري اللهم حجز شهادتي هراء وهجامياشي هراء شدران عبد الله قدومي هراء إلهي من تنوع برينا قبلها سيدو كله قبلها هو هذا قال يقولك ويوين هالجنب كتير وحان خصوص تهمين هو يعمر قدوميها وينك أنه دور علا شغله ولا تنفو انتي بحضي استلمال دو قاد أوض بيكون تحت عضي وحان طبعا هوانك يساقا إنا إرأي بيلين الله هو يبيتي الله هو يجي ما كسوق وده أنا مال شوقي يلا حنا كل احترامنا وحاجة صور على أنا يجي صوب حي تقرأ واحد نبضه وقوة هو يمكن نيجي صدام مش أي هلان وقوة قبله كلام بشارة كل حبسي قبله لما كلام غير كر مركزات كأنه عاصها وحلنا هاي وحي على روتين كل مدة أو نكا ما تهور مرنتي شهين تعبورة السلام عليكم ورحمة الله